lagu yiri dastuurka dowladda Jubbaland qodobkiisa 17aad farqadiisa afraad ee sharaxaysa qaabka doorashada madaxweynaha Jubbaland sida uu qeexayo musharaxnimada xilka madaxweynaha waa in ay soo jeediyaan ugu yaraan 10 xildhibaan intaas ayaa ay soo saareen guddiga doorashada ee Jubbaland haddaba qodobadan ay soo saareen guddigaasi maxay ka dhigan tahay siday soo arkaan musharaxiinta waa kan Professor Cabdiraxmaan Daqare oo kamid ah ragga u taagan xilka madaxweynaha ee maamulkaasi Jubbaland أنا وحنت دورشة جد بقولها يلا بدر على وضع حيسا هنا مشرحين كلها مشرحين مدح بنان جبلان يمدحونها من شركة خليه وضع حيسا وإلا هذا دورشة حد هذا ما أدنى لبضع نجا دورشة قلينا وإن أربيتر اللي هنا وحنا نوضحي مش نوضحين لها وزارة دريمات ذريه كنت ويش عالمية ولا ديري ودي دورشة أنا وحنا نقضي ودي وكان بين رسمه إحنا درست وحول بيسميان ما نقص عنه سواء في السنة نوال وميين سيدنا هذا الله وضع مايا سيدنا هذا الله ما هو أسطوانت هاي وقفت لوكا بإنجرينيا ما نشقين sidoo kale saacado on ka hor ayay ahayd markii siyaabo kala duwan ay u hadleen musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland qaarkood kuwaas oo sheegay in ay dhaliilsan yihiin gabi ahaanba sida haatan ay wax ku socdaan Cabdinaasir Seeraar oo hadlay musharaxiinta qaar waxa uu sheegay haddii ay dhacdo in iyaga aan la tixgelin isla markaana sida haatan wax ku socdaan ay ku sii socdaan iyaguna ay gooni isla isu magacaabi doonaan isla markaana la bixi doonaan baarlamaan gaar ah وما سنتعي عبد القادر lagu yiri dastuurka dowladda Jubbaland qodobkiisa 17aad farqadiisa afraad ee sharaxaysa qaabka doorashada madaxweynaha Jubbaland sida uu qeexayo musharaxnimada xilka madaxweynaha waa in ay soo jeediyaan ugu yaraan 10 xildhibaan intaas ayaa ay soo saareen guddiga doorashada ee Jubbaland haddaba qodobadan ay soo saareen guddigaasi maxay ka dhigan tahay siday soo arkaan musharaxiinta waa kan Professor Cabdiraxmaan Daqare